waxaa maanta halkan ka dhacay waa dimuqraadiyad, waa dawladnimadii iyo baarlamaankii oo micnihiisa soo noqday iyo ilaalinta sharciga. xukuumaddii federaalka Soomaaliyeed ee kalsoonida siinay 2017kii wasiiradii maxaa la yiraahdaa la dhisay boqolkiiba 60 ka badan la diray, dib loo habeeyey, shaqadoodina ka soo dhalaali waayey. xukuumadda aanan saxinay meesha ma joogin. haddee sharcigii hore loogu tuntay waxaa ilaahay mahadiisa maanta in la baraarugay lana xaqiijiyey in maaragtay xukuumaddii halkaas kalsoonidii lagala noqday, guddoomiyaha baarlamaankana ku dhawaaqay. dee waxaan leenahay waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka intaba. dee waxa loo riday xukuumadda way caddahay, su'aal kama taagna. kalsoonida waxaa lagala noqday waxa weeye inay ka soo dhalaali weyday shaqadii loo igmaday. xukuumadda ayaa ku shaqo leh inay ka shaqayso sharciga maaragtay doorashooyinka inay dalka gaarsiiso. xukuumadda looga fadhiyey haddii kalsoonidii maxaa la yiraahdaa hore loogu igmaday fulin weydayna kalsoonida lagala noqday. marka waxaad ku talagalaysaan xukuumad cusub oo midnimo qaran la yiraahdo oo dib loo soo yagleelo dalkaana doorasho gaarsiiso.